markasta isku day inaad samayso waxyaalaha aadan samayn karin ama waxyaalaha aadan qaban karin sababtay tahay taas waxay kaa saacideynaysaa inaad noqoto qof awood u leh wax walba inuu samayn karo uusan caajis ka hor istaagin wax kaste heli maysid laakiin waxaad helaysaa waxaad shaqaysato xaqiiqdii taas run waay adduunka wax adiga aadan shaqaysanin dee haddaadan shaqaysanin oo isdhibin dee waxba heli maysid aday kuu taashaa waay السلام عليكم أصحاب دمانتي وإدين وذا السلام ومسكينتي سوسو أهيد waxaan leeyahay wax idin tahay wanaagsan intiina hore noola joogtan aad iyo aad ba u mahadsantihiin intiina nagu cusub oo nagu soo biiri doontana idinkana waxaan idin leeyahay welcome ku soo dhawaada qalbi furan gacmo furan niyad idin saafiya markasta isku day inaad samayso waxyaalaha aadan samayn karin ama waxyaalaha aadan qaban karin sababtay tahay taas waxay kaa saacideynaysaa inaad noqoto qof awood u leh wax walba inuu samayn karo uusan caajis ka hor istaagin wax kaste heli maysid laakiin waxaad helaysaa waxaad shaqaysato xaqiiqdii taas run waay adduunka wax adiga aadan shaqaysanin dee haddaadan shaqaysanin oo isdhibin dee waxba heli maysid aday kuu taashaa waay safar kasta oo dheer wuxuu ku bilowdaa hal tilaabo aad qaado waa run dee adduunka haddaad hal tilaabo hore usii qaadin ama aadan horey u socon safarba u bixi maysid baan filayaa go'aan kastoo aad gaaraysid ka fikir waxa mustaqbalka dhacaya sababtay tahay go'aanada qaar waxay u baahan yihiin in laga fakaro waqti la geliyo idan qofku go'aanka hadduu gaaro badanaa waxaa jira dad aan kasoo laaban say u gaareen aba kasoo laabaninoo hoos ka xariiqda wax kastoo dhaldhalaalaya ha raacin sababta ay tahay dabku waa dhaldhalaalaa ama markuu kaba soo qaad ololka bixinayo wuxuu bixiyaa iftiin aad u qurux badan marka waxyaalaha qaar waxaa kasoo baxaya iftiin aad u qurux badan laakiin markii runta lasii gaaro dhimbiraha ka kulul dhoolla caddayntu waa jawaabta ugu fiican aad siin karto cadowgaaga waayo haddaad maantay qof aad kaba soo qaad cadowtinimo idinka dhaxayso oo kuu dhoolla caddaynayo kuu qosliya haddaa aragtid dee intaasaaba waxayba kuugu filanba xanuunba marka waxaan dhihi karaa dhoolla caddayntu waa jawaabta keliya ugu wanaagsan aad siin karta dee qof kasta oo noloshaada ka xun aamusnaantu waa nabadgelyo sababtoo ah haddii aad hadasho waxaa laga yaabaa inaad khalad gasho oo marar badana waxaa jirta hadalka badan aamusnaantu ay dhaanto maalmuhu waa isku mid laakiin waxay ku kala duwan yihiin dhacdooyinka waa runoo dee hadda kaba soo qaad maanta waxaa laga yaabaa inaad caafimaad qabtay beri waxaa laga yaabaa inaad xanuunsan tahay maanta waxaa laga yaabaa inaad faraxsanayd beri sidoo kale waxaa laga yaabaa inaad faraxsanayn xoogaa xaaladuhu maaragtay si kaga wareersan yihiin marka intii xanuunsanna waxaan leenahay ilaahay caafimaad taama ha siiyo inta caafimaadka qabtana ilaahay caafimaadka ha u siyaadiyo inta wax haysatana ilaahay waxooda ha u siyaadiyo intaan wax haysanna ilaahay irsaaqad khayr qabto xalaalaha siiyo marka adduunku waa iska wareegto iska ordaya marka insha Allah ilaahay khaatibada khayr ha noogu khatimo hantida ugu qaalisan oo dunida aad haysato waa waqtigaaga ku bixi meel ku habboon adduunka wax walba waa la helaa oo mataqaanaa wax kasta hanti waa samaysan kartaa kaba soo qaad maanta haddaad hanti haysan waa samaysan kartaa beri laakiin dunida waxa ugu qaalisan nimcooyinka ilaahayna siiyey horta way badan yihiin alxamdulilah nimcooyin aad u tira badan ba ilaahayna siiyey laakiin anaga bilaadan baan nahay ma aragno laakiin waqtiga iyo caafimaadka adduunka horta intaas ugu muhiimsan waxa kale oo dhan waa nimcooyin ilaahayna siiyey laakiin inta ugu qaalisan marna nimco kasta ilaahay ku siiya ama ha yaraato ama ha weynaato waa qaali aad bay qaali u tahay qof kasta khalad wuu galaa balse waxaa jiro qof kaste khalad wuu galaa laakiin waxa ugu fiican qofka khalad intuu galo ogaaday inuu khalad galay oo kasoo laabta dad badan waxa iska jira maaragtay badan is ogeyn bilaadan baan iska nahay horta badan khalad waa iskaga dhacnaa laakiin mar walba waxa ugu fiican qofka khalad intuu gala kasoo laabta khaladkaasoo maanta fiidiyogan halkaas inoogu egyahay haddaad fiidiyoga wax ka faa'iiday dhiirigelintu waa xaggeena insha Allah intaan fiidiyoga mid lamid ku kulmeen waxaan rajeynayaa idinku oo caafimaad qaba yaani oo caafimaad qaba insha Allah inaan isku soo laaban doono
tan iyo intaa video lamida ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo